السلام عليكم أصحابتيda waxaan rajeynayaa fi fiican tihiin marka maanta waxaan rabaa inaan maaska timaha sameeyo powderkan ayaan share gareynayaa powderkan magaciisa waxaa la lahaa Shea powder Afrika ahaan ayay ka tahay especially waxaa isticmaalaan naagaha wadanka Chad ka yimaadeen waa powder aad u fiican sidaan uu yaalaa asiga dhan brown waa maanta qasab waa idin tusaa timaha wuu fiican yahay powderkan maadaama aad doorateen alaabta timaha soo timaha wax ku fiican Afrika ka helaysiin insha Allah ayaan soo badinayaa soo powderkan aan rabaa in la share gareeyo Shea powder ayaa lahaa brown waaye Chad ayuu ka yimaada Afrika ka yimaada dabiici waaye marka waa kaas 250 gram midkaan inta timaha wuu badiyaa wuxuu ka dhaafaa jajabku ka baabi'iyaa sidaan uu brown ugu yahay marka 2 qaad ayaa ku shubayaa waa kaas tinta lagama badiyo 2 qaad way kugu filan tahay marka waa kana asxaabteeda powderka sidaas uu brown u yahay Shea ayaa la dhahaa waa kana wuxuu ka yimaada West Africa wadanka Chadka naagaha Chadka timaha aad u qurux badan oo dheer leeyihiin batarkan isticmaala sida uu marsanayso waqtiso aniga maanta marsanooyaa waa idin la socodsiinaa isbuuc hal mar marsadaa tinta wuu badiyaa wuuna bixiyaa salka tinta ka soo baxaysa ha marinin caadi oo marinaysa tinta le marinaysa caadi anana hadda ku tusaayo soo programkeena timaha lagu bixinaa wadana ana waxaan isticmaalayaa conditionerkan waa shaambadeena maasha Allah iyo conditioner wadato waxay wadataa dacar aloe vera iyo biotin oo aad iyo aad timaha ugu fiican timaha daadanayo u fiican paraben free waa sulfate free waa shaambada iyo conditionerkiisa lagu helaa gabadhii soo weydiisana habay linkiga hoos ku soo dhigaya online ka dalbanaysa direct gurigaaday kugu imaanay haddaa Soomaaliya joogtiin dadka reer Soomaaliya lambarkiina ii dhaafa Soomaaliya xagga gabdho ku gadaa jira xagga idin tilmaamaya direct xagga ka gadanaysiin marka conditionerkan ku shubaya waa kaasa Shea ama conditioner ku qasa kartaa ama biyo ama coconut oil laakiin aniga conditioner rabaa inaan ku qasto marka conditionerkaygaan ku qasanaa conditionerkan beel waa timaha xariir sabiibax qurux uu ku kala bixinayaa ana markas shaambadeedii conditionerkayga ayaan isticmaalaa wax kale ma isticmaalo cause paraben kuma jirto sun kuma jiro sulfate ma ku jiro waa kana saan u qasmaa maasha Allah markuu si fiican u qasmo timaha tartiib ayaan u marinayaa waa idin tusaa wax badan uma baahnid miska buuxinaysid intee ka helaysaa waa powderka xulbada burka shumburaha waxyaabaha dabiiciga dhan waxaa ka helaysiin gabdhaha reer Soomaaliya waxaa ka helaysiin suuqa bakaaraha rosmarinka dhagayaraha kulli wax kastoo dabiici ah suuqa bakaaraha ayaa ka helaysaa baayo Muqdisho way yaaliin Soomaaliya way taallaa haddii aadan Soomaaliya Muqdisho joogina maanta xamar qofku waado ama kaaga soo gado inaa heshid waayo marka waa kaasa saasoo noqday conditioner ku qasin maasha Allah waa carfaya conditionerkayga haddaad biyo ku qasi kartaa laakiin aniga conditionerkaygaan ku qastay waa kaasa 2 qaandan ku qasay hadda waa idin tusay 2 qaad ama 3 qaando is dependent timaha ay tahay laakiin markaad test gareynaysid Shea waxaan kula talinaa wax yar sidaan camal inaad qasatid markaad timaha marinayno waa qasni kareem camal waaye
conditionerkayga waan ku qasay conditionerkaygana waa kana maasha allah hasii shaambadiisa is wataan ready waaye sida kalar camal ayaa timaha marinaynaa waa kan kana lagu marinaa okay let's go waa kan asxaabteeda hadda waa marinayaa sidaan idin sheegay inta majeeda salkaas ka marin timaha lee mari ani wax yar ayaan tijaabinayaa inta majeeda sida xulbada marinaya xulbada waa marsan kartaa laakiin shebe intaas dhexda shebe ha marin timaha lee mari shebe ma loogu talagalin dhexda tintaa loogu talagalin bas inaad marisid Oops. عرف واي كريمي كريمة ويقدي وعارفة يا ملح جلوف كواسك صاير ماما مات بايت سوكي وحبضن مكو غارة مركا كونديشنر كوست marka sanitimeeyay inaan galaamaan jeclahay galaanka waxay iga caawinaysaa markaa maaskada sameynayo inaan gooni u samaysto habeenkii in la galaamo ama laba tidax ka dhigtid way fiican tahay sida subaxdii markaa tinta soo kacday aysan iska dhegdhegin ama ay buufka noqonin sidaan kuu soo sheegay shaybii markaa baroobeynaysid laba qaandii bar ama laba qaad sidaan hadda aan sameeyo waa baroobi kartaa kabacdi markaa ka heshid wax badan waa qasi kartaa soo wax kasta waxay fiican yihiin inaad test ku samaysid taas waan hadda laba qaadna u qasi aan test aan kugu tusaayo and then next time wax badan aan qasaa timaha inta ma jeedaa shaybeet intuu kala bibixiyaa timaha wuu badiyaa dabiici waaye laakiin salkaas ka marin tinta le mari haddaa youtube kasoo jeergaraynayso waxaa ku qortaa shabi powder jaad naagaha jaadyaanka sida marsanayaan waa ka fiirsan kartaa dariska xagga qofaa xanaaqsan oo malena daldan mooy saasay ku noqonaa inuu cilaan yahay camal omleysa laakiin cilaan maahan
alahana marna. Wakasa waygeeda saan kuu sheegay tinta lee marinaysaa salka haska marin timaha bas lee mari salka ha marin waa kuu sheegay si fiican u fiiri video waa ogaa dadkeena inay iska fudfudud badan yihiin so please instructionka si fiican u dhageyso wakasa indhaha iska jiriyay kaa galin indhahaadana ka ilaasho hop kastoo gacmahaasaan ku leedahay wakasa 30 daqiiqa ku dhaafee 30 daqiiq ka bacdi waa ka dhaqaysaa shaambo fiican ugu dhaq weli ani waxaa yaara inaan kuli dhameeya rabaa
soddon daqiiqo kabacdi waa kasoo dhaqaysaa. Insha Allah next time waxaa idin tusayaa siduu ii noqday brown waa hadda kanaas kasoo dhaqaaya. Insha Allah siduu ii noqdaa idin tusayaa next time waa ka dhaqaa. Saliid ma marinayo timaha 30 daqiiqan ku haynayaa ama ilaa 45 daqiiqo laakiin marka kow waxaan kula talinayaa 30 daqiiqo inaad ku haysid. waa kaas asxaabteyda mahadsantihiin. haddaad su'aal qabtid hoos igu soo qor. meeshaad joogtid maalin wanaagsan.